أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قدومي كحجين كعقل كسرة مدن أبشر أحمد محمد حلبان نذا لبض الجلاء برلمانك علماء هوينك حجامياش دقنك وررضة اليرضة إن درجتك يا قنيانك بعض الصحافة يدمان مرتشرفتك سوق غيب شيء مناسبة منصب يدرجة كسر ويكوجوجان وكم هتسنتهين إن هذا أجيبتين وعيتان كان جزاكم الله خيرا مدن يالي مروي وحن مانتي يسوقين يري كلن كان إن أنصير رسمي وقول رواقه إن أنا هاي مرشح أتاجن حلك مدحوينها دولة قبلات كجلمود sida la socotaan waxa haatan socda dadaalo fara badan oo dib loogu yagleelayo dawlad goboleedka galmudug waxaana fursadan uga faa'iideysanayaa inaan soo dhaweeyo dhammaan dadaaladaas uguna baaqo dhammaan reer galmudug inay si nabad ah u soo dhistaan maamul ay wada leeyihiin mudanayaal iyo marmooy go'aankan aan ku gaaray inaan isku sharaxo xilkaas ma ahayn mid igu fudud marka la qiimeeyo xaaladda cakiran ee maanta ay ku sugan tahay galmudug iyo caqabadaha baahsan ee hor yaalla maamulkaas hase yeeshee waxaan go'aankan gaaray kadib markaan xeeriyay qodobada soo socda kow waxaan gudoomiye u ahaa guddigii heer wasiir ee soo dhisay maamulka galmudug sanadkii 2015 waxaan fursadaas ku kala bartay dhammaan qaybaha kala duwan ee wada dega galmudug waxaan kale oo u kuur galay yididuulooyinka dadka deegaanka galmudug baahiyaha ay qabaan oo isugu jira kuwa amni kuwa maamul kuwa dhaqaale iyo kuwa horumarineed labo waxaan 2 sano bar ahaa wasiirkii arrimaha gudaha iyo federaalka mas'uuliyadaas oo fursad ii siisay inaan la falgalo guud ahaan dawlad goboleedyada dalka gaar ahaan dawlad goboleedka galmudug intii aan wasaaradda arrimaha gudaha joogay waxaan si joogto ah uga shaqeeyay xiriirka u dhaxeeya dawladda federaalka ah iyo dawlad goboleedyada gaar ahaan arrimaha siyaasadda amniga qaybsiga khayraadka iyo wadaagga awoodaha dalka taas oo aan ku guuleystay kuna faani karo muddadii aan ahaa wasiirka arrimaha gudaha in dawladda federaalka ah iyo dawlad goboleedyada ay heshiis ka gaareen dhammaan arrimaha masiiriga ah taas oo suurto gelisay qabsoomidda doorashadii 2016-2017 ayadoo markii ugu horeysay burburka kadib doorashada dalka lagu qabtay maamul goboleedyada aan soo dhisnay mudanayaal iyo marweyn waxaan ka xumahay in ay maanta muuqato qaybsanaan weyn oo u dhaxaysa dawladda federaalka ah iyo dawlad goboleedyada taas oo aan aaminsanahay in laga baaqsan karo sidaas darteed waxaan rumaysanahay haddii aan noqdo oo ii doorataan madaxweynaha galmudug inaan kaalin mug leh ka ciyaari karo isu soo dhaweynta wada shaqaynta dawlad goboleedyada iyo dawladda federaalka ah mar labaad sidii markii hore aan sameeyay saddex waxaan haatan ahay xildhibaan laga soo doorto deegaanada galmudug isla markaana xiriir aad u dhow la leh dadkii soo doortay iyo kuwa walaalaha ay yihiin ee ay wada deegaankaba dhowrkii sano ee la soo dhaafay waxaan fursad u helay inaan safarro ku kala bixiyo degmooyinka xorta ah galmudug intooda badan anigoo dhageystay qaybaha kala duwan ee bulshada si qoto dheerna u fahmay baahiyadooda afar inkastoo uu galmudug allaha ku manaystay nimcooyin fara badan oo ay ugu horeeyaan midda dadka ka soo jeeda goboladaas oo lagu tiriyo kuwa ugu horeeya dalka xagga siyaasadda iyo dhaqaalaha haddana galmudug waxay 4 sano ee la soo dhaafay la kufaakacaysay xiisado siyaasadeed dhaqaale xumo waxaa la soo gaaray mudanayaal iyo marwooyin waxaa la soo gaaray xilligii galmudug uu hogaamin lahaa qof leh kartidii aqoontii waayo aragnimadii
iyo fahamkii loo baahnaa isla markaana la jaan qaadi kara qaybaha kala duwan ee bulshada. mudanayaal iyo marwooyin waxaad isweydiin kartaan haddii lagu doorto maxay yihiin arrimaha ugu muhiimsan ee aad wax ka qabanayso. waxaan rabaa inaan caddeeyo inaan toddobaadyada soo socda soo gudbin doono barnaamijkayga oo dhammaystiran, hase yeeshee waxaan si hordhaca idinla wadaagayaa qodobada hortabiyada leh ee aan wax ka qaban doono haddii ilaah yidhaahdo. horaan idinku sheegay halqabsigaygu waa galmudug mid ah, dad wada jira iyo deegaan nabad ah. kow, waxaan wax ka qaban doonaa amniga haddii ilaah yidhaahdo. bulsho amni haysata ayaa yididiilo yeelan karta. sidaa darteed dadaalkayga ugu badan waxaan ku bixin doonaa in dadka reer galmudug ay ku noolaadaan amni ay isku halayn karaan. amnigaas waxaa hawshiisa qaban doona laamaha amniga oo aan u dhiibi doono shakhsiyaad karti, aqoon iyo waayo aragnimo aan ku soo xusho, isla markaana aan ka fogeeyo inay ku dhex milmaan siyaasadda. muddo kooban kadib marka la i doorto waxaan soo bandhigi doonaa istiraatiijiyadda lagu xorayn doono degmooyinka kooxaha argixisada al-shabaab weli gacantooda ku harsan oo ay ka mid yihiin Xaradheere, Ceeldheer, Ceelbuur iyo Galhareeri iyo Galcad iyo tuulooyinka hoos yimaada iyo tuulooyinka hoostaga. istiraatiijiyadaas waxay noqon doontaa mid ay iska kaashadaan ciidanka dowlad goboleedka galmudug oo geesinimadooda aan doodu ka jirin iyo ciidanka dowladda federaalka ah. labo, siyaasad loo dhan yahay. guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan galmudug waxaa bulshada xasilooni u laadahay waa siyaasad aan wadar ogol ku dhisnayn. waxaan taariikh u leeyahay anigan ina odawaaya inaan ahay qof ka soo shaqeeyay siyaasad la wada leeyahay xilligii aan gudoomiyaha u ahaa guddigii dhisayay galmudugtii hore ee madaxweyne Cabdi Qaybdiid uu madaxweynaha ka ahaa oo maanta halkaan fadhiyo. waan ku faraxsanahay inuu fadhiyo. ahlu sunna wal jamaa, ximini xeeb, central state iyo deegaanada kale aan soo sheegay ayaan waxaan u soo dhisay inay si wada jiro walaalnimo wax ku soo wada dhistaan. waxaad xasuusataan in xulidda xubnaha baarlamaanka galmudug ay ahayd mid loo madax baneeyay beelaha iska leh kuraastaas iyadoo si xor iyo xalaal ah loogu tartamayay kuraasta waaweyn sida madaxweynaha, ku-xigeenkiisa iyo guddoonka baarlamaanka. waxaad xasuusan kartaan in murashaxii lagu tirinayay fila Soomaaliya waqtigaas looga adkaaday guddoomiyihii baarlamaanka oo u adkaaday nin oday oo hadda guddoomiyihii leera Cali Gacal Casir. waxaad xasuusataan in murashaxii ay lagu tirinayay in fila Soomaaliya wadatay uu farac jilo uga fakaday saaxiibkay murashaxii mucaaradku markaas watay madaxweyne murashax xildhibaan Axmed Macalin Fiqi. halyeeyga aan seexan ee reer galmudug astaantana u ah qarannimada Soomaaliyeed runtii saaxiibkay. galmudug waxaa ka dhashay dowlad goboleed ay iska dhex arki karaan dhammaan qaybihii bulshada. waxaan dadaal weyn ku bixiyay inaan ahlu sunna ku qanciyo ka mid noqoshada geedi socodka dhismaha maamul samaynta galmudug anagoo waqti badan ku bixiyay magaalada Dhuusamareeb. waxaan rabaa inaan fursadan uga faa'iideysto in haddii la i doorto aan xiriir wada shaqayn oo wanaagsan la yeelan doono dhammaan dowlad goboleedyada dalka iyo dowladda federaalka ah. waxaa xiriirkaas xakamayn doona dastuurka federaalka ee dalka u degsan kaas oo kala cadaynaya kaalimaha ay kala leeyihiin heerarka kala duwan ee dowladda Soomaaliya. number 3, dhaqaalaha iyo horumarinta. anigoo ka faa'iideysanaya nimcooyinka dabiiciga ah ee Alla uu siiyay galmudug gaar ahaan midda dadka ka soo jeeda gobolka oo ah kuwa ugu hodansan dalka. waxaan ka shaqayn doonaa oo lagu tiriyo kuwa ugu hodansan dalka. waxaan ka shaqayn doonaa in galmudug ay noqoto gobolka ugu hodansan. inkastoo aysan galmudug haatan lahayn deked, haddana waxaan dowladda federaalka ah kala shaqayn doonaa hirgelinta dekedda Hobyo si ay galmudug u noqoto dowlad goboleed isku filan. waxaan sidoo kale abuuri doonaa aan ku kobcin doonaa dhaqaalaha. waxaa ka mid ah abuurista iyo midaynta dhammaan ilaha canshuuraha galmudug iyo dib u nooleynta kalluumaysiga, xoolaha iyo beeraha gobolka.
dad badan oo aan reer galmudug ahayn waxaa laga yaabaa meesha qalalan hadday arkaan kalluun inaanaan lahayn ay moodaan laakiin xeebta ugu dheer dowlad goboleedyada waa galmudug inaa intaas ogaataan waan rabaa for your information dhanka kale galmudugta aan madaxweynaha u noqon doono waxay xiriir sokeeye dhaqaale xiriir dhow oo dhaqaale la samayn doontaa dowlad goboleedyada aan dariska nahay ee Puntland iyo Hirshabeelle kuwaas oo dhaqaalaheenu isku xiran yahay number 4 maamul wanaag qodobka ugu dambeeya waa maamul wanaag haddii la ii doorto xilkaas aan maanta murashax u ahay waxaan galmudug ka dhigi doonaa insha Allah gobolka ugu maamul wanaagsan dalka dhanka hay'adaha dawliga iyo adeegyada ay bixiyaan oo ay noqon doonto kuwa lagu tashan karo arintaas waxa laf dhabar u noqon doon arintaas meesha saar waxa uga yar in oo soo jeesitaan arintaas waxa laf dhabar u noqon doona dhalinyarada reer galmudug ee kumanaanka ah ee ka qalin jabinaya jaamacadaha dalka iyo kuwa dibadda hadhow nin aad asaga jaamacad ka soo qalin jabin soo dadka u shaqada u gali lahaa laga rabo waxaan galmudug ka dhigi doonaa mid qofka u baahda adeega uu heli karo sida ugu fudud annagoo ka faa'iideysan doona tiknoolajiyada adeega badana halkaas laga dalban karo hadii la adeegyo badan halkaas laga dalban karo mudanayaal iyo marwey waxaan rabaa inaan ku soo gunaanado laba baaq oo muhiim ah oo aan u kala dirayo reer galmudug iyo dawladda federaalka ah reer galmudug oo ay ku jiraan beelaha soo wada igladay soo wada dhistay waxaan leeyahay walaalayaal aan dhisano maamul loo dhan yahay oo na wada qaada qof walbana waxaan ku leeyahay aan soo dhaweeyno dadaalada dib u heshiisiineed ee hadda socda danteena ku jirta dib u heshiisiin dhab ah in la gaaro dawladda federaalka ah oo meelaha rag qaar hadda ka muuqdaan waxaan leeyahay waa ku mahadsantihiin wixii aad ilaa haatan ka soo qabateen galmudug balse waxaan ka digayaa in afduub lagu sameeyo rabitaanka reer galmudug si natiijo gaar ah loo soo saaro annaga idinkaga khibrad badan soo dhisida maamul oo soo dhisnay galmudug iyo Hirshabeelle hadii waxa la yiri lagu sheegana waa la is sheelaa